kulanti waxaan akhyaarta soo dhawaada dhamaantiin oo salaamantihiin Ramadaan Mubaarak. Ramadaan maanta waa kow hambalyaha idin leeyahay dhamaantiin. Dad badan ayay duruufta u saacidin inay Ramadaanka ay gaaraan. hadda maadaama Ramadaanka jaanis u heshay waa inaad ka faa'iideysataa markay noqoto dhanka cibaadada. Ilaahay dambigeena inuu dhaafo insha Allah, soonkeena iyo cibaadada la imaanana la aqbalo insha Allah. Aamin. intaas kadib videoga aad iga warsugeyseen wuxuu ahay videoga in hadda maanta aan soo geliyo wuxuu ku saabsanay baqtiya nasiibkii. soo marka maadaama bisha Ramadaan la joogo waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto bisha Ramadaan waxyaabaha faa'iidada leh oo yacni aad ka heli kartid inaan markaas aan kula wadaago ayaan jeclaystay. videogana waa qaybtiisa koobaad ee Ramadaanka ku saabsan وانا ودي دونا إن شاء الله وحيابا بدن وقفك فائدة أولها إن شاء الله. مد أو كوباد وحان ربا إنا ندينا وداقو صدح دقاب أو جيرك دادك أو قيب صمو مركي لقارو رمضان كسيدا أو قفال عليا ماداما أو سوميا كلايكو جينكيس أو فراقيا أو بابا أو دمانايو جيركون أو استعمالايو وحيابها اللعونايا وحيابه لميدا. نمبر 1 مد ugu horeyso dadka jirkooda wuxuu kala qaybsamaa saddexdan midka ugu horeeyna wuxuu noqonayaa qofka in يعني او ميزان بدن او دميو صدح محو ahay 13 15 كيلو inuu hoos u dhago Ramadaanka markii la joogo 30 kaas maalin inuu miisaan badan oo dhumiyo oo soonka markii la oo dhamaadana oo noqdo qof istakiin ah oo maaragtay baabay asaga dhan oo reer aakhirad u eg. taasna sababta keento waxay tahay qaabka oo u afurayo iyo waxyaabaha oo cunayo qofkaas ayaa kala duwan. soo marka hadii oo maalintii oo dhan uu soomayo shaqo aadam iskuul oo aadayo waxa loo baahan yahay habeenkii markuu cunteynayo wax nafaqo badan leh, wax protein u keenayo, wax cunto fiber leh, cunto dabiici leh oo u baahan yahay iyo cunto isku wada dheelitiran. hadii intaas oo heli waayo marka waxay noqonaysaa qofkii inuu miisaan fara badan oo dhumiyo noqonaysaa. waxa kale oo keeni karo inuu allergy oo kale cuntooyinka uu ku yahay oo asagan ogsooneen oo markuu waxay cunaba oo calooshiisa ay fuurayso kale iyo waxyaabahaas. soo marka qofkaas waxa la gudboon inuu helo yacni just diet isku dheelitiran oo markaas oo uga gudbo bisha Ramadaan oo uu ilaaliyo miisaan badan inuusan ka dhicin. hadaa murqa badan inta samaysatay oo Ramadaanka kugu soo galay oo yacni just jirkaada oo aad u baaba'ay aad ka cabsanaysid hadii aad jeclaatid waa ila soo xiriiri kartaa. waxayna noqonaysaa markaas inaan diet oo khaas ah aan ku sameeyo si markaas miisaankaada uusan hoos ugu dhicin. midda labaad oo guda galina waxay tahay marka dadka miisaankooda uusan meelna u dhicin oo sidiisa oo u taagnaado. dadkaas waa nasiib xun yihiin waana nasiib fiican yihiin. waxay ku nasiib fiican yihiin marka qaar hadii qofkaas qof faad leh uusan ahayn jirkiisa murqiisa uu haysan karaa. jirkiisana marka si fiican waxa uu ma isticmaalayo badan oo markaas ku baaba'ayo biyo badan ama ka baxayaan sida midka kale miisaanka badan dhuminayo biyo badan way ka baxayaan. soo jirka biyo qaadashadiisa fiican aan cuntadiisa qaabka isku dheelitiran tahay iyo qaabka oo cuntooyinka nadiifka ah oo uu cunayo kale ayaa keeni karto. midka saddexaad ayaan u gudagalayaa marka inta midka saddexaad u gudagalin waa inaan ku noqdo midkan miisaankiisa meesha taagan yahay. hadii qofkan uu ahay qof faad badan leh markaas wuxuu sameynayaa maalintii oo dhan markuu baahan yahay habeenkii oo kale markii la gaaro ay wuxuu cunaa cunto calorie badan leh, saliid badan leh, faad badan leh. soo marka jirkii glycogen store-ka ma dhameysanayo. wuxuu u dhameysanayna waxay tahay jirkii waxbuu sii isbaareen waxbuu yacni sii safe gareynayaa waxaana keenaya cuntada nadiifka cuntada oo maaragtay nadiifka aan ahayn oo cunayo. hadii cunto nadiif ah oo cuno qofkaas miisaankiisa aad ayuu hoos ugu digi doonaa. soo marka qofkaas waxa ka qaldan waxay tahay cuntadaas inuu saxo qaab isu dheelitiran cunto fiican oo nadiif ah oo markaas keeni karto birito kale jirkiisa inuu isticmaalo keedka uu ku jiro ma ahana cunto zaa'id ku ah oo biri xataa uu jirkiisa dhameyn karin oo jirkana uu sii keed gareynayo inuusan cunin. qaabka saddexaad qofku waxa waaye inuu miisaankiisa kor u aado meesha ma taagnaa qofka miisaankiisa kor aadayo. taasna waxa keenayso waxay tahay laba qaab. cuntooyinka qaar inuu allergy ku yahay oo jirkiisa barar iyo biyo badan oo ceshanayo iyo in cunto qaldan oo cunayo oo markaas sidoo kale midka miisaankiisa stabiilka oo hay uusan hoos u dagin oo kale oo la wadaago. hadaba saddexdaas qayb kuma tahay adiga. hadii aad rabtid miisaankaada inaad hoos u dhigto ama murqaada aad haysatid ama miisaankaada inaad kor aad dhisid waad ila soo xiriiri kartaa. waxa u baahan tahay qaab specific ah inuu qofka uu ku fiiriyo oo markaas yacni just wax kugu saabsan wax kugu soo baxay kugu haboon inuu ku siiyo. qaabka jimicsiga soo hartay
jimicsiga wuxuu ku fiican yahay in habeenkii marka afurtid ka bacdi inaad training garaysid qaab loo training garayo ramadaanka leeyahay waqti la training garayo leeyahay waxyaabo la cuno leeyahay trainingka ka hor waxay u baahan tahay cilmi iyo waxay u baahan tahay in maaragtay qofka aqoon oo leeyahay ku filan dadka qaar oo waxaad arkaysaa cuntooyinkii inta iska sii qabanaya dadka qaar waxaa arkaysaa oo yacni maaragtay biyo badan isku daldalayo biyo cuntadii aan helin dadka qaar waxaad arkaysaa ayagoo waqtigii ugu fiicnaa haysto inay haddana ay maaragtay aysan ka faa'iideysanaynin waxaa kaleeto arkaysaa marka dadka qaar oo salaadihii iyo masaajidkii iyo ka tegayo horta waxaan rabaa inaan idinla wadaago videona toosna kasoo sameynaa jimicsiga naftirkiisa inuusan ahayn wax yani cirka kasoo dego wax walbaba meela laga keenay videoga xiga ayaan idinkugu sheegi doonaa meesha laga soo halguuriyey meesha laga keenay iyo qaabka aan idinkugu sharaxi doono insha allah videoga xiga ayaan idinkula wadaagayaa jimicsiga meesha ka soo askumay oo asal laga keenaba jimicsiga dhanba laga soo abaabulay iyo qaabka jirka uu soo shaqeeyo laga bartay iyo waxaan idinla wadaagi doonaa supplementiyada ugu haboon ee la isticmaalo iyo qaabka loo training gareeyo musalsal inoo noqon doontaa habeen walba inaan soo geliyo ayaan isku dayi doonaa insha allah dhammaantiin waxaan idin leeyahay guuleysta dhedhee laguma dhismay waa loo dhibtoodaa stay mirir guuleysta allana ku xirnaada insha allah ramadaan mubaarak mar kaleeto dad badan aan ka faa'iideysan oo nasiib aan u helin ramadaanka inay noqdaan kuwo macduur ah inay noqdaan kuwo aan weli diintaba soo gelin iyo kuwaba ilaahay oosan waqtiga oosan haleeshin oo ilaahay oobsaday annaka maadaama hadda aan nool nahay oo ilaahay nabad nagu soo gaarsiiyana kuwii ka faa'iideystay inaan noqono insha allah videoga xiga intaan ku kulmi doono oo habeen dambaan kusoo bandhigi doono qaabka meesha uu ka imaaday trainingka iyo qaabka ugu haboon oo qofka u training gareeyo waxaan idin leeyahay stay mirir السلام عليكم.